dhabar xanuunku wuxuu ka mid yahay calaamadaha ugu badan oo ay bukaanada igu imaadaan ama dhakhaatiirta lafaha ugu tagaan. Boqolkiiba 90 waxaa la dhahaa dhabar xanuunku wuxuu ka imaadaa murqaha iyo seedaha oo tugan ama adag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa dhakhtarka lafaha isbitaalka Horseed Dr. Sayid Cumar. Waxaan rabaa wacyigelin kooban oo ku saabsan dhabar xanuunka inaan bulshada la wadaago. Dhabar xanuunku wuxuu ka mid yahay xanuunada ugu badan oo dhakhaatiirta lafaha ama dhakhaatiirta guudba loogu tago, ha ahaadaan caruurta, dadka waaweyn ama dhexdhexaadka iyo dadka waayeelka ah. Dadka yaryar ee gaaraan ilmaha iskuuleeda waxa ugu badan ee u keenay ay waalidkii u baahan yihiin inay ogaadaan waxa waaye culayska iyo boorsooyinka culus oo buugaagta ay ka buuxaan oo ay dhabarka ku qaadayaan, taasoo dhibaatooyin badan ay ka imaadaan. Halka ugu fiican ee lagu yareyn karo xanuunkoodana waxa waaye in ay culayska iska kala yareeyaan, boorsadana si siman labada garab ugu qaadaan. Dadka dhexdhexaadka ah ee shaqeeya, rag iyo dumar ha ahaado, ama guriga ka shaqeeyaan ama xafiis ka shaqeeyaan, xanuunkooda waxa ugu badan ee keena waxa waaye fadhiga, jiifka iyo positionada kala duwan ee nolol maalmeedkooda u fadhiisanayaan oo khaldan. Tusaale, dhaqan ahaan dadku waxay u badan yihiin in kursiga markay ku fadhiyaan qarka intay ka fadhiisaan ay gadaal u santeecsadaan, taasoo dhabarka aanan u fiicnayn, gaar ahaan qaybta hoose ee dhabarka. Sidoo kale joodariga jilcan oo lagu seexdo qayb ayay ka tahay xanuunka dhabarka. Sidoo kale gambar ama fadhi gaaban oo la fadhiisto oo muddo la foorarsanaado dhabar xanuunka ayay qayb ka tahay. Dhammaan xanuunadaas maadaama lala xiriiriyo waxyaabo la xiriira nolol maalmeedka ayna ka imaadaan dhinacaas, halka ugu fiican waxa waaye in waxaas la soxo. Tusaale, qofka fadhigiis uu soxo, istoosiyo, fadhiga gaaban uu ka fogaado, ilaadu ku roon yahay waxyaabaha kaleeta ee jiifka sida joodariga ama shaqada, waxyaabahaas uu saxo. Dadka qaarkood ayaa waxaa laga yaabaa inay wax culus hal jeer ay la boodaan ama qaadaan. Culayskaas halka jeer la qaadaya asigana dhibaatooyinka ama waxyaabaha xanuunka keena ayuu ka mid yahay. Xanuunada dadkaasna badankooda muruqa ayuu ka jiraa. Waa u iman doonaa goorma ayaa laga walwalaa dhabar xanuun qof daadaana. Dadka waayeelka ah wuu ka duwan yahay dhabar xanuunkooda dadka kaleeto, maxaa yeelay ayaga xanuunkooda haddii uu dhexda uu yahay uusan geesanayn, waxyaabo badan ayaa keeni kara. Isku soo wada duub, boqolkiiba 90 waxaa la dhahaa dhabar xanuunku wuxuu ka imaadaa murqaha iyo seedaha oo tugan ama adag, kuwaas oona adkaanshahooda ama xanuunkooda uu ka imaaday waxyaabo nolol maalmeedka qofka la xiriiro. Goorma ayaa laga walwalaa dhabar xanuun? Haddii qofka uu da ahaan uu weyn yahay, xanuunka joogto uu yahay, xanuun baabiyayaasha intii uu qaato uu nafisi waayo, ama xanuun habeenkii kasoo kicinayo uu yahay, calaamaadkii xanuunka ka sokow uu qofka uu leeyahay, maxaa la dhahaa dhidiid, tabardaro, daal ama miisaankii oo yaraanayo, waxyaabahaas oo la isku geeyay, ama calaamaad kaleeto ay ka mid yihiin qofkan qof xanuuno kala qabo waaye, sida kansar lagu ogyahay, dhabar xanuun cusub oo yeeshay. Dhabar xanuunkii kabaabi ayaa la socotaa, qof waayeela waaye, jug ayaa ku dhacday. Haddii waxyaabahaas dhabar xanuunkii lala xiriirinayo ama ay socdaan, qofkaas wuxuu u baahan yahay inuu ka walwalo. Markaasna waa marka dhakhtarka lafaha ama dhakhtarka qofka intuu u tago loo ofar gareynayo in raajo ama iskaan ama CT ha ahaado ama MRI ha ahaado ama baaritaana ku habboon loo diraayo. Bulshada waxaan ku baraarujinaa marka in dhabar xanuunka si loo yareeyo, maadaama badankiisa uu ka imaanayo waxyaabo nolol maalmeedka la xiriiro, waxyaabihii nolol maalmeedka la xiriiray ay saxaan, fadhigooda saxaan, jiifkooda joodari adag ay isticmaalaan, fadhiyada gaaban iyo si khaldan in muddo qofka ugu foorarsanaado, uu iska ilaaliyo wax markuu qaadayo wax culus. Tusaale, uu iska ilaaliyo inuu hal jeer wixii la boodo, si siman oo baalansidu u qaado. Waxyaabahaas guud waa waxyaabaha yareynayo dhabar xanuun degdeg. Haddii calaamaadkii walwalka lahaa isku aragtidna, waxaa fiican inaadan fududaysan oo aad dhakhtarkaaga u tagtid. Waxaa idin rajeynaa caafimaad. kusoo dhawaada qaybta lafaha isbitaalka Horseed. Assalaamu calaykum. Horseed Hospital waa horseedka caafimaadkaaga.